daraasadeeyay in toddobadan kaarto waalidka isticmaalaan inay koriyaan ilmo mustaqbalka haddii ilaahay idma noqda hogaamiye waa kow waa in waalidku maaragtay ilmihiisa uu ku dhiirigeliyo go'aan qaadashada marka waalidku wuxuu sameynayaa ilmaha ogolaanaya inuu qaato go'aano yaryar oo maalinle ah waa waalidka maaragtay ilmahooda u furan inuu la sheekaysan karo oo uu maaragtay wax walba u sheegi karo ee aanu ka cabsanaynin ilmahaaga inaad siiso kalsooni ah inuu kula hadli karo oo wax kasta kuu sheegi kara waxay ilmaha gelisaa kalsooni waa saddex waa in waalidku ilmaha baro sida mushkilad loo xalliyo ilmaha waxa fiican bay leeyihin khubarada carruurta ku takhasustay in aanad markii mushkilad timaado in adigu mushkiladda xaliso dhawaan ilmihii ku tiraahdaa ab mushkiladan ama hooyo mushkiladan maxaan ka yeelnaa sideen u xalinaa taasi ilmaha waxay korisaa garaadkiisa iyo qaab fikirkiisa iyo critical thinking waa afar waa in waalidku uu ilmaha ku ammaano dadaalka hawl uu geliyo maaha waxa uu sameeyey waa shan waa in waalidku uu ilmaha baro waxa loo yaqaano team worker iyo inuu wada shaqayn la samayn karo cid kale waa lix waa in waalidku ilmaha uu siiyo fursad uu ku guuldaraysto maaha wax dhibaato u keenaya jir ahaan iyo maskax ahaan maaha laakiin ilmaha in uu wax isku dayi karo deetana uu guuldaraysan karo oo uu ilmuhu ku dhac yeelan karo waa meelaha uu ilmuhu ka barto ku dhaca waa toddoba waa in waalidku maaragtay ilmaha uu siiyo oo u asteeyo mas-uuliyad qoran oo hadhow kula xisaabtamo